وبركاته. إلهي بقى محل مركبه الرئيسة هل كان اسكو كان إنه رسول تجري إن طارشودي اسكوسيت كنايد قلها وكيل لده يقولها الديجان كجمهورية الصومال لان أي سنة بتقب يبرواقو باش إنه قلنا ماتو إنه قلنا دعضو انت كبعدي وحكلون مهد علينا لما شعبي وينها الصومال لان كقيب قاتي حال هذا عد بحنتاسي وحكلون مهد علينا أصحاب السياسة قرنك صدق حسب قرن وسموك يميسان له نوغل شقيي مددي دورشده iyo muddadii ka dambeysay ee ay socotay tirinta codadka gobolka Maroodi Sheekh inta ka bacdi sida uu sheegayo qodobka 129 xeerka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa aanu muddadan ku hawlanayn tirinta iyo hubinta iyo hufidda codadka ay dhiibteen shacbi weynaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Maroodi Sheekh inta ka bacdi sida uu dhigayo qodobka 130 xeerka doorashooyinka Soomaaliland waxa aanu halkan diyaar uga nahay caawa oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 6 2021 inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guuleystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 31 May 2021 haddaba anigoo hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhri doona waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeyo UCID xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyay waxa weeye 46390 cod waxana uu ku guuleystay ama uu soo baxay 5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax Maxamed Khadar Daahir Moogi Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur Maxamed Cismaan Maxamed Xasan Saciid Maxamuud shanta mudane haddii aan inta ku dhaafo xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 100,000 iyo 100,517 cod kuwaasoo u suurtageliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Cabdi Muuse Cige Cabdikariin Maxamed Maxamed Yaxya Cabdilaahi Amiin Ismaaciil Xasan Saleemaan Dhuxul Maxamed Xuseen Jaamac Rambo Axmed Yuusuf Nuur Guruuje Cabdilaahi Sheekh Maxamed Axmed xisbiga wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadka haysta waxa weeye 99,329 cod kuwaasoo gooyay ama u sababay in ay soo baxaan mudanayaashan aynu yeerin doonaa mudanaha koowaad tiradooda oo 7 mudane waxa ay noqonayaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun Axmed Dayib Aadan Guuleed Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Jamaal Aadan Diiriye Ciise Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi Ibraahim Maxamed Jaamac 7 xubnood ama 7 mudane ee ku guuleystay intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa xafladeenan aynu ku shaacinaynay ama munaasabadeenan aynu ku shaacinaynay mudanayaasha ku guuleystay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.